casharkan waxa uu ka mid yahay casharada kooraska Adobe Software Installation. Kooraskaas oo lagu baran doono qaabka loo soo dejisto applicationada Adobe Software. Sidoo kale, kooraskaasi inta uu socdo waxa lagu siin doonaa in ka badan 5 application oo kala ah After Effects, Premiere, Photoshop, InDesign, Illustrator iyo in kale oo fara badan oo ka mid ah applicationada Adobe-ha walibana iyaga oo wata karaagoogii. Kooraskana waxa lagu bari doonaa qaabka adigu aad ula soo degayso applicationada oo karaagoogii wata computerkana aad ugu shubanayso. Haddaba cidii kooraskan u diyaara si aad warbixin amba macluumaad dheeri uga hesho waxaad la soo xidhiidhaa nambarka WhatsApp-ka ee shaashada hortaada kaaga muuqda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتين بكلانتي هبون يسكسون نقد مركلة صاحبيا وأينكو كلاني بلوغا كورس كيننا أينكو برندونو Adobe Software إسكا installation كوغا أم بس نو install كريستو يولي بنا علادها قبصانيا قاب كله حريو 10 كينني و10 كيو ريسي جودان كورس كينن ما تاينو بلابي دونو كورس كان وحو كوبنان دونا لبا chapter ka ugu horeysana waxaynu ku baran doonaa inaynu guud ahaan applicationada aan dusino noocyadoodii kala duwana sida Photoshop-kii, Illustrator-kii, InDesign-kii, After Effects-kii, Premiere Pro-gii iyo Portable-kii oo aan dusin doono labada version ee Photoshop-ka iyo Premiere-ka. Labadaasna waxaan idin ka siin doonaa Portable-kuna waa system loo yaqaano macna Portable-ka waxa la yiraahdaa system-ka shaygaagan maxaa ku dhahdaa computer walba application-ka ku shaqeynaya ayaa loo yaqaanaa Portable. macna computer-kaagan waa Windows 8 kana waa Windows 7 kana waa Windows 10 inta Portable-ku ku shaqeynaya inta badan. laakiin Portable-ku waa system-kaaga baahan inaad mar walba doonayso application-kii furato dib aad u tiraahdo run as administrator macna dib install gareyn aad u samayso markaad soo xidho wuu isxidhaya application-kii computer-kaaga uu ka dhex baxaya. haddaba inaha aan uga soo gudbo warbixinaha dheerigan inta ay ka siinay haddaan soo noqdo chapter-keena koowaad intaasaynu ku baran doonaa. chapter-keena koowaad soo kale waxaynu kaga bogan doonaa maxay tahay see loo helaa Adobe-ha desktop app-kiisa amba Adobe Creative Cloud desktop app-kiisa si loo soo dejisanayo iyo walibana waxaynu ku baran doonaa sanad walba applicationadan Adobe-ha waa la bedbedelaa oo mid 2014 buu soo baxay midna 2020 buu soo baxay midna 2025 laga yaabaa inuu soo baxo. intaasiba applicationada soo kala baxbaxay sideebaad adu updateska ula socon kartaa maadaama aad koorskan baratay sanadka doontid aad baratid 2021 ka baro 2022 ka baro iyo wixii ka sii horeeyay baro ka doontidba baro laakiin sanad kastood barato waa inaad garata mar kastood barato waxaad u baahan tahay inaad ku ugu dambeeyay updateska aad heshid sidii aad ku helisay ayaynu chapter-kana ku baran doonaa. chapter-keena labaadna waxaynu ku baran doonaa ciladaha qaabka loo xaliyo application-kan Adobe-ha ku yimaada ayaynu ku baran doonaa. ciladahaas oo guud ahaan ilaa 3 ciladood layna tusi doono iyo macluumaad kale oo dheeriya. casharkeenan maanta wuxuu ahaa hordhici guud ahaan kooraskeenan. haddaba casharkeenan maanta inta aynu ku joojino tani intaynu suugu iman doono cashar la mid ah waa aniga oo idinkaga tegaya erey inta badan ee kooraskan aynu ku guda jirno aynu soo oran doono waa aniga oo idin leh ismaqal aragti dambe oo xiiso badan.